howlgalka EU NAVFOR ee Atalanta oo ay weheliso EEuCAP Somalia ayaa dhawaan tababaro kor loogu qaadayo tayada ciidanka booliska Soomaaliyeed la sameeyay waaxda ilaalada xeebaha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, ciidanka badda Soomaaliya iyo ciidanka badda Puntland. howlgalka midowga Yurub ee Atalanta oo socday tan iyo 2008 isla markaana muhiim u ah amniga badda ee waqooyi galbeed ee badweynta Hindiya ayaa hadda diiradda saaraya sidii dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya looga taageeri lahaa ka hortagga burcadbadeedda. EU NAVFOR Atalanta waxa uu sidoo kale gacan ka geystaa joojinta ka ganacsiga maandooriyaha iyo hubka. waxa ayna sidoo kale taageertaa dadaalada dawladda Soomaaliya ee ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah. 7 bishan Agoosto, Rear Admiral Alvargonzález, taliyaha ciidanka howlgalka Atalanta, ayaa martigeliyay wafdi wadajir ah oo saaran NUMANCIA. And here on board, we are going to witness a training exercise between the EU assets, notably EU NAVFOR Atalanta, which this ship belongs to, as well as EEuCAP Somalia, together with the Somali police force. It's actually a pleasure for me to witness the support and the effort European Union are doing for Somalia. I'm also glad to witness the very specialized training that you are providing for our coastal guard. We want to go further together, doing our best from the sea to support the needs of the Somali people in a close and practical way. We want to be your eyes and your hands on the sea, your main maritime security provider. I am glad to be a part of European Union family on board. I'm representing a civilian mission. We're providing a lot of developments on infrastructure, and I'm glad to be part of the project, and I'm glad to be part of the visit. Talaabooyinkan sida wadajirka loo sameeyay waxa ay si wax ku ool ah u soo bandhigeen habka isku dhafan ee midowga Yurub ee barnaamijyada maalgelinta ee lagu xoojinayo awoodda Soomaaliya ee badda.